xaaladda Itoobiya ayaa si weyn isku beddelaysa indhaha ayaana lagu hayaa wixii ka dambeeyay markii ciidanka TPLF ay shalay qabsadeen magaalada Dizia oo muhiim u ahayd dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya gobolka Wollo qaybo badan oo ka mid ah TPLF ayaa la wareegtay ciidamada dawladda ayaana laga saaray goobahaasi magaaladan muhiimadeedu aan hore uga soo hadalnay ka sokow haddana dhinacyada iska soo horjeeda ayaa hadallo kala duwan soo saaray TPLF waxa ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay la wareegeen aagaga muhiimka ee dagaalka waxa ay sheegeen in hadda aysan jirin wada hadal cid ay la gelayaan oo ku wajahan dagaalka socda afayeen u hadlay TPLF ayaa sheegay inay joogaan guul dagaal marka laga hadlayo masraxiyadda dagaalka waxaana afayeenkoodu uu sheegay in wada hadal iyo gorgorton wax la dhaho hadda kadib aysan shaqayn doonin dagaalku wuu dhammaaday iyaan wada hadalka la gelaynaa ayuu yidhi generaalka hogaaminaya saraakiisha ciidanka Tigray ee dagaalka kula jiray dawladda Itoobiya sidaasoo kale hadal hayeenka kooxda ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada lagu magacaabo Komblach oo muhiim u ah gebi ahaanba istaraatiijiyadda dagaalka waqooyiga waa marin muhiim oo mar kale gacanta TPLF ku dhacay waxa uu xusay in tallaabadan ay ugu leeyihiin inay meesha ka saaraan xanimaadda go'doominta ee lagu soo rogay shacabkooda isagoo sheegay in tallaabadaas ay tahay mid si weyn ay dhinacooda u doonayeen maamulka Amxaaradu dhinaca kale waxa ay go'aamiyeen in dhammaan miisaaniyadda deegaankooda loo adeegsado dagaalka in dhammaan gaadiidka dawladda ee xamuulka iyo kuwa rayidka ayana loo adeegsado dagaalka waxa ay kaloo go'aamiyeen in shacabkoodu ay dagaalamaan hubka dawladda iyo shacabka hubku haysta ayay sheegeen meel la isugu keeni doono si ay u dagaalamaan Amxaaradu waxa ay ku baaqayeen saacadihii la soo dhaafay dadaal xoog leh oo ku wajahan in loo midoobo dagaalkana la galo laakiin maamulka Amxaarada ayaa xaalad degdeg ku soo rogay gebi ahaanba kililkooda waxay sheegeen in looga gol leeyahay tallaabadan si TPLF ay uga saari lahaayeen goobo muhiim ah oo ka mid ah gobolkooda oo ay la wareegtay kasokow xaaladda degdeg ah ee maamulka Amxaaradu ay soo rogeen haddana si weyn ayaa loogu tuhmayaa kooxdan ama qowmiyaddan inay ku jabtay fagaaraha dagaalka marka laga hadlayo TPLF ama qowmiyadda Tigreega ay ishayaan oo inta badan ka qabsatay deegaano muhiim ah gaar ahaan labada magaalo ee u dambeeyay oo muhiimad weyn ugu fadhiyay ismaamulka Amxaarada Itoobiya ciidankeedii militariga ayaa u muuqday inuu sida wasladda u kala daatay iyadoo aan la aqoonin jihada dambe ee go'aamin doonta xaaladda Itoobiya dawladda Itoobiya wali kama hadlin arrintan marka laga reebo hadal hayeen shalay u hadlay oo sheegay inay wali haystaan magaalada Dizia taasoo warbaahinta caalamiga iyo goobjoogayaalba ay beeninayaan xaaladda Itoobiya ayaa si weyn isku beddelaysa sanad ayaa laga joogaa bilowgii dagaalka kooxda TPLFna waxa ay hadda soo gaartay goob aysan hore u joogin sanad ka hor markii ciidanka Itoobiya ay dagaalku qarxay bishii November ilaa iyo waqtiganna xaaladda ayaa ah mid aad isku beddelaysa marka ka dambaysa dadku si weyn ayay u faalaynayaan arrimaha ka socda Itoobiya si weyn ayaana indhaha loogu hayaa waxaanu eegi doonaa burburka Itoobiya haddii ay dhacdo saamaynta kala duwan ee qowmiyaduhu ay ku yeelan doonaan iyo xaaladaha ugu dambeeyay oo marba si toos ah idila socodsiin doono shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada shaararka iyo saraawiisha kabaha isbarbarka bajaajyada dawooyinka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda